jannadiisa ha ka waraabiye waxa 27kii bishan 11aad ee sanadka 2013 ku geeriyooday magaalada Hargeysa abwaankii weynaa Ciise Warsame Samatar Ciise Dhancade kaasoo muddooyinkii ugu dambeeyay ku noolaa Cariga Ingiriiska waxa uu ku dhashay sanadihii 40aadkii gobolka Daadmareer isagoo da'yarna waxa laga keenay miyiga waxaana la geeyay magaalada Berbera halkaasoo kula noolaa walaashii Caasho Warsame oo ku magac dheereed Caasho Dheer ganacsina ku lahayd magaalada Berbera الله نحرستي أبوانكن وحاو سوغان كلا دوان كسميي وقتيادي قبنمدودنكي سوماليدا وقويي waxaan waqtigaasi ka can noqday geeska Afrika oo dhan isagoo suugaantiisuna gaadhay badi wadamada Afrika abwaanka weynaa Axmed Salvan Biddi waqtigan ku nool magaalada Hargeysa ayaan kala sheekaystay taariikhda Allah u naxariistay Ciise Warsame oo iyagu saaxiibo dhow ahaayeen muddo ka badan 50 sano hadaba Ciise Warsame 1957 كامبينكii u horeeyay ama kacdoonkii u horeeyay ee Berbera lagaga qaaday Ingiriisku inuu ina siiyo gobnimadeena oo aynu gobnimadeena kaga doonayno nabadgelyo iyo sharaf iyo xiriir wanaagsan oo inoo dhaxeeya iyadoo arinta sidaana loogu akhriyi jiray marka Berbera la isu soo baxo casarka siiga ka kiciisay dadka xiisihiisa u dawladnimadiisa oo qabo إبراهيم حاج عقال أيان أتقن مركا عيسى بربرو جوجيو وحكا قبي شري أما كهسي شري أو الله SNL أو علي قودن الله نحرسته يا محاها أضيق دقاقل أورن شري علي دقاقل أورن شري أو استرشري اسكو حقي لبضوا بقى لحظة مرات كو حرن شري أو دتك أولو ليه سكحين شري أو جمعيات مضحوا وحاير شمعيادنا أي هيد متك شمعياد بوي كحوجينيد بان نقول هذا ومدة مش هاي الهاي سو كان يقف كمان واحد عيسى وقت جار رجي قبي أي جراري صغير أيوها والله ما كهسيسي أما قبيديسي ما حسوسني لكن يا كل واحد إنه قعنا إنه قبل ما هلا بنك سكرية كل واحد إنه قعنا إنه قبل ما هلا كلبي يا أرور كتبينو نهاي سيرير قورايو كل واحد قعنا وإنينو قبل ما هلا أو دورها صدق نوعاس iyo gabayo yar yar oo kooxda fanka iyo suugaanta oo odayaasha suugaantu ay u badnaayeen gabayaagu oo xataa ciyaar la dhex galin jiray dhaqankeena ciyaaraheen hawl adag ahayd ayuu ka mid ahaado dhexda cumaamada ku sitay ku xidhnaa jani qaar marka ninka halkaa kambeynka ka soo bilaabay ilaa 60kii la helay dabeedna gobonimadii dee fanka wuu waday oo halkaa uu ka soo galay kama buu hadhin shaqadiisana gaar buu u watay wuxuu ahaa nin xaraga jecel wuxuu ahaa nin ehlo salaa wuxuu ahaa nin deeqsiya wuxuu ahaa nin adiyada aqoon wuxuu ahaa nin wixii xun la diido qofkii gartana yiraahdo war iska daa gardarrada ama khaladka wax aynkaasa waxa la yiri jid ma la martay jid ma la martay jidiisa ma la cuntay jabadsa ma la gashay aniga saddexdaba waan wada galay muddadii uu fanka Soomaalida ku jiray Ciise waxa uu sameeyay heeso riwaayado iyo suugaan kale waxayna caan ka yihiin deegaanada Soomaalida heesta sidii ay rageelo oo ay qaadaan fanaaniinta Allah u naxariistay Farxiye Cali iyo Rashiid Bullo waxay kamid tahay heesaha uu alifay abwaan Ciise Warsame
abwaan axmed salaabaan bidde oo soo jeediyey in la ururiyo taariikh faneedka abwaanada magaca ku leh Soomaalida dhexdeeda ayaa ka hadlay suugaanta kale oo ka xusuusto abwaankan geeriyooday markaan anigu saaxiib baan noqonayba oo markaan berbera tago gurigiisan ku degi jiray isna markuu Hargeysa yimaado gurigeyga ku soo degi jiray marka heesihiisu way fara badnaayeen gabayadiisuna way fara badnaayeen run ahaantii waxa wanaagsan in la qoro dadka taariikhdiisa dad badan baa waxay iska dhinteen taariikh aan laga qorin baa iska dhinteen waxa weeyaan heesihiisu way badnaayeen ma ogtahay
maan moodi jirin hees laydhaah ayaa jirtay raggii markii hore gumaysigu ma garanaysaa hadduu sidaas ahaa oo gumaysigu mar layba xumaa inaynu markaynu gobonnimo helo madmadow arkayno maan moodi jirin waxaa ka mid ahayd heesihiisa gufaaco heesta laydhaah maxamed salaan qaado cabdalle saag cabdalle maxamed caraale ayaa qaadi jiray may ayaa codka sameeyey heesta gufaaca layidhaah ana ninkii u kala qorayay midhahaan ahaa guriga reer salaamidaa lagu sameeyey sida heesta la yidhaahdo idil sidaas leeg bay ahayd intaad idilay arad ku maqan tahay arad sheeye aad ku maqan tahay yaa way urku taal leh ayay ahayd waa hees jirta heesta godoon la yidhaahdo iyadana intaan adiga gabadh kuu gooniyaba hablihii ila gudboonaa sida ayrageelna isagaa lahaa heestaasna waxa qaada farxiye iyo rashiid bullo haddii ay badankeeda leeyahay heesihiisu way badnaayeen ninkaa feleg hees la yidhaho ku jirtay riwaadii anigu aan sameeye dadku waa isku muuqadana waa kalamaan ayaa jirtay halkan aniga wuu iga raacay riwaadda la yidhaha garashaa garab weyday hadsi mooye la gaadhi oo heestan sida geed caleeniya ku jireen halkan gala qaaday hargeysa waddankan oo dhan baanu sii maray xamar baanu tagnay ilaa xamar baanu ka dhignay dadkuna marka socoto wada gashaan ee dadka qaar isqabtaan ee maaliyadi jirto ee hawla jirto ee la daalo ee la isla tabcaamo ee la isku dhacdhaco ayaad ku kala barataa gurigaa ku wada jirtaan kuma baran kartid marka sidaasaan jid ma la martay jabad ma la gashay jidiisa ma la cuntay aan kaaga warramayay ciise warsame wuxuu ahaa nin gabayaa wuxuu ahaa nin mu'alifa fanka iyo suugaanta wuxuu ahaa nin riwaadaha sameeya oo riwaadii isagaa lahaa jacayl godobtii gabdha loo tiri alla ilaahay bad baan galay iyo ay ku jiraan sahre axmed iyo matalayeen cumar hooraaye iyo oo ilaa xamar la dhigay ilaa hargeysa ilaa waddankao dhan lagu wareejiyey maxay ahayday barnaamijyo badan buu sameeyey gabayada waanada talada ah wuu sameeyey waddanka in badan buu ka hadlay imanka intii u eglan jiray ama ka yimiba aad buu u hadlay ninkaasi wuxuu ahaa nin waayeela oo buuxa oo sharaf leh ayuu ahaa dalka iyo dadkaba ka baxay ilaahay naxariista janaasi abwaan markii xilliyadii toddobaatanaadkii berigii fanka soomaalidu aadka u sarreeyey kooxaa jiray kolley oo waa beri ay ku caansanayd saan sheeko ku maqlay waqtigii toddobaatamaadkii oo lagu tilmaamay in fanka soomaalidu gaadhay meeshii ugu sarraysay ayaa fanaaniinta iyo abwaanadu ka kala tirsanaayeen kooxa ay ugu sarraysay kooxdii waa beri axmed salebaan ayaan weydiiyey halka uu ciise kaga jiray kooxahaasi horta marka hore reediyo hargeysa iyo reediyo xamarba ayaanu kala ahay marka haddana ha ahaatee reer somalilanku in shaqaysiya aan shaqaynba fanku isku mid buu ahaa inta aan shaqaynin dee markay barnaamij qabtaan lacagun baa la siin jiro voucher baa loo qori jiray oo allahu naxariistee cabdi ducaale iyo maxamed xaashi iyo mustafa xaaji nuur iyo axmed muxuu ahaaye axmed faarax kaahin iyo ismaaciil xaaji cabdi iyo haddii axmed gorod iyo majid qaadi iyo haddii eebedinkeeda leeyahay dee raggii meesha joogi jiray rag fara badan baa ahaan imanka aanan wada xusuusan karayn laakiin raggaasi dee ilaa ingiriiskii qofkii fanaanahe dee wax keena waxaasaa loo qori jiray markaa waxaysaa loo qori jiray markaa may kala lahayn yaa shaqeeya iyo yaan shaqaynin inaga maahe yaa shaqeeya iyo yaan shaqaynin may kala lahayn xamar lacaynka cayn la eg bahayd markii dambe dowladda militarigu qabsatay dalka towraddii maxamed siyaad barre ayaa wixiiba la isku daro layidhi waa beri haddana waa la sii kala saarayoo waa berigii ayaa laga soo xulay macalimiin marka anigana ka mid ahaa raggii waa beriga laga bedelay ismaaciil cali abubakar baa markaa haystay anigu xabsigan ka soo baxay dowladdii maxamed siyaad barre ayaanu xidhnayn waa markii raganimo ninkaagii iyo jeeli iyo jacayl iyo waxa aan samayn jiray raganimo ninkaagii dhacsanaa maxaaba gufaaco waa mid ka mid ah heesaha ugu caansan uu alifay ciise warsame waxaana laxan ka saaray cabdilla sagsaag waxaana heestaasi qoray axmed salebaan bidde isagoo uu codkiisana ku qaaday maxamed salebaan tube aniguna garadkay
أدقياي حتى قربت للقمر وريودي ماي محمدا إله باب وتكون حساني سيدك لي يا بارد عرقوني دقان أودا قدومي محمدا إله باب وتكون حساني iyadoo ay jiraan dad badan oo abwaan iyo hal abuur leh kuwaasoo magac dheer ku leh fanka Soomaalida ayaa inta badan waxa jira cabashooyin ku saabsan inaanay badankoodu helin daryeel waxaana jira kuwa badan oo hadda ku tabaalaysan dalka misna fankooda lagu tilmaamo kuwa loogu jecel yahay Axmed Salmaan Bidde waxa uu si qoto dheer ugu sharaxay sababta keentay arrinkaasi hortaan ku warramay fanku iyo suugaantu waxa ay ka mid yihiin hantida dalka ay ka mid yihiin fanaanka ama alabuurka ama gabayaagu waxa weeyaan ma abwaanka la sheegaa waxa weeyaan waa natural material xoolaha dhaqaalaha dalka ayuu ka mid yahay oo Masar iyo Hindiya iyo intay ka helaan cashuurta fanka iyo suugaanta kama helaan beerahooda iyo cashuuraha kale laakiin inagu heerka ma aynu gaarino qoonsanay marka fanku ama suugaantu waxa weeyaan wax qiimo ah oo nolosha ku qaali ah oo telefishinka iyo raadiyoga iyo golayaasha iyo anigan kula hadlayo iyo dadka aynkaas waa wax lagu nooliyay oo waa xigmad la isu sheega marka waxa weeye dadkeena taa u aqoon daran oo sidaas aan loo daryeelin fanaaniinta ama naafada ha ahaato dagaalada ku naafoobay ama dadkan baabuurta ka dhaca ama si kasta wax u helaan ama dadka bukooda fanaan ha ahaado ama cid kale ha ahaadee in la taageero waa waajib meesha ku jira Allah ina garansiiyo abwaankan oo isagu lahaa heeso badan ayaa waxa kale oo kamid ah heesihiisa waalifay heestii u bixi baxayo udgoonow oo ay hore u qaadeen Allah u naxariistay fanaankii Xasan Diiriye iyo Saar Axmed Jaamac walow ay jiraan fanaaniin kale oo Saar Axmed dib ula soo tuntay Abayo,
كويمذا ويكني آمن إيمان كدقها المينين هاردابينو أمرها خادن إيمان كدقها المينين أحذبا إنو حران آمو أحذبا إنو حران آمو waxaan intaasi ku soo koobiya taariikh faneedka Allah u naxariistay abwaan Ciise Warsame Samatar Ciise Dhancadde waxaana si gaar ah ugu mahad celinaya abwaanka Axmed Salebaan Bidde oo isagu iga caawiyay ururinta taariikhdan kooban ee fanka Ciise Warsame